السلام عليكم ورحمة الله. مركز لكسر channel كيغا. ما أنتو حاروا يعني لو ذاقو si fudud oo hilibka iskaga rido dhawaantan dad badan ayaa waxay soo weydiinayeen niyo dalxiis ayaa aadi rabaa si degdeg ah inaa saddex isbuuc gudahood kiilooyin iskaga ridaa rabaa 2 isbuuc gudahood kiilooyin iskaga ridaa rabaa dad kale waxay soo weydiinayeen aroos ayaa gal rabaa soo fit inaa ahaado ayaa rabaa isbuucyadan soo socda jirkayga inuu fit ahaado soo si fudud kiilo iskaga ridaa horta kiilo maxaa la dhahaa si fudud hadaa inaa kiilo iskaga ridi rabtid waxay u baahan tahay strict diet زايد u adag oo micnaheed waxyaalo badan ka goynaya sababtoo ah dietka normalka aan sameeyno waxa waa dietka qaar wuxuu noo ogolaaday inaan carbohydrate cunno maalinkii ilaa 100 ilaa 200 gram laakiin marka degdeg wax inaad iska yiri dirabtid waxa waa carbohydrate inaad ka goodid so maanta ayaa ka hadli doonaa sida degdeg ah hilib iska helido ogaawna hadaa hilib degdeg iska yiridid waxa 90% inuu hilibkaas kugu soo laabanayo so waxaa filayaa inaad iska ilaalin kartid hilibka iska marka kugu soo laabanaya iska ilaalin kartid jimacsiga inaad badisid jimacsiga aad sameeynaysid cunooyinka wanaagsan aad sii wadid markuu hilibka ka dhaco ayaa gabadha so waxaa sameyn doonaa labadaas isbuuc waxaa sameyn doonaa wax zero carbohydrate la dhaho zero carbohydrate wax carbohydrate ma cunaysid wax la dhaho carbs hadaa maqashid adii isma taqaanin waxaa sameynay bariis baasto canjeero waxaas idil rooti waxaas idil oo ka gooyo wax carbohydrate la dhaho idil waxaa cunaysaa kaliya protein cunto protein leh ukunta hilibka waxaas cunaysaa waxaa kaloo cunay khudaarta waxaa ka wada fruit ma ka wada khudaar marka dhaho waxaa ka wada cagaarka waxaa cunay spinach waxaa cunay cabbage waxaa cunaysaa maxaa la dhahaa ansalaatada waxaa cunaysaa maxaa la broccoli cunooyinka cagaarka waxaa cunaysaa khudaarta noocaas sababtoo ah cunooyinkaas khudaarta waxaa ku jiro carbohydrate zaid u yar waxaa laga yaabaa bacdan intaas oo maxaa la dhahaa carbohydrate inay ku jirto 9 gram oo carbs ah so zaid ay u wanaagsan tahay khudaar badan inaad cuntid midda kale waxaa cunay fatska video ayaa ku sharxay fatska waxaa waaye avocado kale waxaa cunay maxaa la dhahaa nutska looska waxaa cunaysaa oo kale peanut butter waxaas oo idila cunaysaa fat ka samaysan so cunooyinkaas ayaa cunaysaa laakiin wax carbohydrate la dhaxma taawanaysa asbuuca ugu horeeya so way adag tahay asbuuca ugu horeeya inaad jirkaaga carbohydrate la'aan u ahaado marka waxaa sameynaysaa bedelkii carbohydrate khudaartaas ayaa ka buuxinaysaa waxaa kaloo ku daraysaa biyo fara badan tusaale ahaan waxaa cabaysaa kanuu maalinkii 3-4 saac cabaysaa 1 gallon 2 gallon oo biyo inaad cabtid al rabaa biyo zaid u badan inaad cabtid maalinkii sababtoo ah jirkeena carbska zaid ayuu u baahan yahay waana barane sababtoo hadduu jirka bini'aadamku wuxuu la qabsado adag tahay marka carbohydrate-kii aan la qabsanay ayaa waxaa isku dayanaa inaan ka goyno bedelkiisa fats aan ku bedelno energy-ga oo carbohydrate ka heli lahayn inaan fats aan ka helno shantaas 7 maalin ugu horeysa markaa sidaa sameynaysid jimicsiga muhiima jimicsiga haddaa qof bir qaada tahay birahaaga sidaada ayay ku wadaysaa waa qaadaysaa haddaadan biro qaadin waxa ku sameynaysaa orod cardio ayaa sameynaysaa 7 maalinba 30 daqiiqo ilaa 1 saacadood oo cardio ayaa sameynaysaa asbuuca ugu horeeya waxaa hubaal ah inay 3 ilaa 4 kiilo ka dhacayso sababtoo ah kooda horta wax ka dhacayo 2 kiilo ugu horeysa ka dhacayso waa biyo jirka bini'aadamka waxaa marka hilib ka dhacayo wax ugu horeeya dhacay hilibka ma aha ee biyaha way biyaha jirkeena ku jiro qof walba bini'aadana jirkiisa biyaha ka buuxo so biyihii ayaa ka dhacay 2 kiilo meelahaas biyo noqonay 2 kiilo kale waxaa noqonaysaa baruur haddii aad tahay qof zaid u buuran horta adiga waxaa laga yaabaa in kiilooyin zaid u badan ka dhaco so kor iyo hoos adiga hadda kiilooyinka badan yihiin ama kiilooyinka ku saar normal ay yihiin kiilooyin waa ka dhacaysa waa loo hubaa so asbuuc labaad gaarnay asbuuc koowaad sidaas ay ku soo sheegnay waxaa cuni lahayd dhan asbuuca labaad cunadii waxaa ku soo kordhinay carbohydrate sababtoo ah depleted waxa la jirkeena ku dhacaya jirka bini'aadamka waxaa waaye wuxuu bartay hadduu waayo waxaa way adkaanaysaa inuu sii shaqeeyo so asbuuca labaad maalinkii waxaa ku soo kordhinaysaa 50 gram carbohydrate 54 gram meelahaas waxaa waaye 2 xabo rooti ismarisa 2 xabo rooti ismaris bas oo carbohydrate ayaa cunaysaa waqtigaa rabtid cun subaxii habeenkii duhurkii waqtigaa rabtid cun laakiin carbohydrate labadaas kaliya ayaa cunaysaa maalin walba 7 maalin xigtoo kale waxaa cunaysaa kaliya 2 xabo rooti carbohydrate cuntooyinka kale sidaada ay ku aanaysaa waa cunaysaa
laakiin wax kaliya kusoo kordhinayso waa carbohydrate. midda kalena proteinka waxaa la rabaa inaad xad u yeeshid sababtoo ah proteinka hadduu bato fat uu isku bedeli karaa baruur uu noqon karaa. so hilibka iyo dooradii wax markaa cunaysid inaad xad u yeeshid oo zaa'id aadan u cunin. midda saddexaad maxaa la dhahaa asbuuca labaad aad kusoo kordhinaysid waxaa waaye jimicsiga. jimicsiga waxaan yidhi saacad ilaa 40 daqiiq markaa samaysid jirkeen already wiigaas uu la qabsaday jimicsiga aad samaynayn. marka waxaa isku daya inaad 10 ilaa 20 daqiiq ku dartid. waxaana wanaagsan inaad subax iyo galab kala samaysid sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay kugu adagta 1 saac iyo 20 daqiiq inaad jimicsi aad samaysid oo isku xigta. haddii ay ku fududaa aad samayn kartid waa okay, laakiin waxaa ku dhihi lahaa 30 daqiiq aroortii ah ama 30 daqiiq galabtii ah ama 40 daqiiq aroortii ah 40 daqiiq galabtii ah kala samee. labadaas isbuuc sidaa ku samee. haddii mataqaana kiilooyin ay kaa dhici waayaan igu soo laabo youtube-ka commentiga ku reeb ama facebook igula soo xiriir. been ayaa noo sheegtay igu dheh sababtoo ah anaa jirkayga ku tijaabiyey. gabartii hadda kor idiin sheegi jiray youtube-ka video ag samayn jiray Kenya joogta ayaa ku tijaabiyey. dad kaloo halkan jooga ayaa ku tijaabiyey. waa program zaa'id u fudud oo degdeg hilibkaaga dhacayo, laakiin programkan muu ku wanaagsana 3 isbuuc ilaa 4 isbuuc ka badan inaad samaysid sababtoo ah jirkeena waxaa samaynayna wax qasab ah jirka loogu talagalay ayaa ku qasbayna. marka looma baahan inaa 3 isbuuc ama 4 isbuuc hataa 3 isbuuc uusan kuu dhaafin. hadduu 3 isbuuc kuu dhaafo waxaa waaye caafimaadkaaga ayaa dib ugu imaanaya sababtoo ah jirkeena cuntooyinka zaa'id u yar iyo kaloriga zaa'id u yar ama carbohydrate zaa'id u yar ma ku shaqayn karayo. wayna adag tahay madax xanuun iyo balaaga ka qaadaysa. anaa ku tijaabiyey jirkeyga 4 isbuuc ka badan inaa ku tijaabiyey markaas madax xanuun laf xanuun waxaas iska dareemay energy gymka markaa joogo inaa wax qaadi kari waayo waxaas dhan ayaa isku arag. so wuxuu u baahan yahay kaliya waqti xad ah 3 isbuuc inaad xad u samaysid. marka gooshaada gaartid waxaa isku daydaa marka inaa hilibka uusan kugu soo laabanin aad jimicsiga wax sii wadid. so video ma dheereynayo. channelka haddaa ku cusubtahay wax la sameeya waa taqaanaa subscribe like asxaabta gaarsi. peace out.